farxad bay anaga noo tahay jaamacadda bariga Afrika faraca Garowe in aanu marti qaadno arday ka tirsan bahda jaamacadda bariga Afrika ka qalin jabinaysa kulliyadda xanaanada xoolaha oo waxa weeye dhamaystay waxbarashadoodii inaanu ku marti qaadno faracoodii kale oo labaad jaamacadda bariga Afrika faraca Garowe waxaan leenahay dhammaantiin soo dhawaada waxay idin tusinaysaa jaamacadda bariga Afrika inaysan ahayn meel kaliya jaamacad hal meel kaliya ku xaniban ama gobol kaliya joogta ay tahay jaamacad baahsan ardaydeeduna ay access u helayaan inay intay farac ka tagaan mid kale xaflad ku dhigtaan mid intay ka tagaan midka kale ay waxa weeye ay waxbarasho u doontaan sidaas inay isugu socon karayaan kulliyadda xanaanada xoolaha waxaynu soo nahay xooluhu waa lafdhabarta dhaqaalaha Soomaalidu ku taagan yahay waxay ku leedahay marka ahmiyad weyn ee nolosha horumarka iyo dhaqaalaha wadankaba ku leedahay maadaama marka leedahay waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo la barto loo dadaalo waxay u baahan tahay cilmiga xanaanada xoolaha ama dhakhtarnimada xoolaha in la barto si loo daweeyo kamuka si loo ilaaliyo tarantooda si loo ilaaliyo noloshooda intaba iyadoo taay ka duulayso jaamacadda bariga Afrika waxay furtay kulliyadda xanaanada xoolaha oo ka furan magaalada Boosaaso dafcadii saddexaad oo maanta qalin jabisay laba dafco ka horeeyay ayaa qalin jabisay waxaan u mahad celinayaa jaamacadda bariga Afrika dhammaan heerka ay soo gaarsiisay ardaydan hadda halka meesha fadhida iyo kuwii hore oo dafcadii hore ka bixi jiray iyo waxbarashada guud ahaanba sida wanaagsan oo ay u soo barbaariyeen oo 5 sano ilaa iyo intii ka badan bay waxbarashada u soo wadeen mahad balaaran baan u celinayaa Ilaahay maadey ka gaadho waxaan kale oo u mahad celinayaa hadda meesha laga diray in wasaaradda xanaanada xoolaha ay si badan u bacan daabatay iyadana aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kale oo u mahad celinayaa ardaydii ruuxoodii wax soo bartay oo waqtigooda ku lumiyay inta badan juhdiga badan soo galiyay waxbarashadooda waxaan leeyahay halka ka sii wado inta kaliya ma aha war sii socdo oo idin mahad celinaya idinkana meesha aad soo gaarteen runtii anagu waxaan nahay ardayda kulliyadda xanaanada xoolaha waqti badan iyo wax badan u soo qabtay deegaanka ay ku nool yihiin iyadoo ay naga saacideen wasaaradda iyo jaamacadda bariga Afrika runtii waxyaalahan ka qaban waxa kamid ah in Boosaaso gudaheeda aan ka qabano xoolo badan aan caafimaadkooda ka shaqeyno xiriir ku hareeraysan inaan maraysaa dawo iyo geeno baaritaan sidoo gudoomiyuhu sheegay jaamacadda bariga Afrika in aan tagno maxaajirta oo aan runtii aan ka sameeyay baaritaan badan iyo maraysaa xoolo badan aan ku daweynay sidoo kale waxyaalo badan oo aan trip ah oo loo diray jiray oo ay kamid yihiin inaan nimi gaalkacyo oo aan xarfo iyo deegaanka aan ka shaqeynay oo aan xoolo badan ka daweynay hadda waxaan diyaar u nahay una ahaan doonaa inaan deegaanka u sii shaqeyno East Africa aad baan ugu mahad celinayaa sababtu waxa weeye saddexdii dafcadood oo soo galay qayb waxa weeye shaqaale wasaaradda ay ka mid yihiin kullina waxay kala dadka ka shaqeeyo xoog iyo quwadda waa talaalka xoolaha marka uu socdo daweynta xoolaha markay socdaan idinkuna waxaad noqonaysaan dafcad ku soo biidha way soo dhowdahay 19 qof waxaanu ballan qaadaynaa idinkuna inaad ku jidaan qolada ugu horeysa shaqeynaysa